laakiin marka isguursanay haddii maanta xaas kale aan la guursan lahaa haddaan nolol kale ku mashquuli lahaa waxaa laga yaabaa isla sidii maalintii aan isguursanay ilaa maanta inaan hal meel taagnaan lahaa laakiin markay hal qof ku xagayso teeda kale markuu qofku hogaankaaga markuu hayso oo ay maxaa la ii sheeg haween hayso oo kula talinayso ay adduunka ilaahay waa horumarka rag kasta oo horumar gaar waxa ka dambeeya haweenada ay dadku yiraahdaan anigana waa arkay marka qofkaaga iska dhiibto oo isku dhiibto tiraahdo bal noo tali familkana u tali nolosha iyo horumarkana ka tali waxa uu meesha ka saaray mugdiga iyo wararkii la isla dhaxmarayo ku saabsanaa asaga iyo xaaskiisa inay isku dhacsan yihiin ugu dambeyn meel fagaara ayuu ka sheegay Dayaxdal Nuurshe inuu ku qanacsan yahay xaaskiisa Farxiyo uusan doonayn in qof kale uu guursado waxa uu sidoo kale meesha ka saaray warar in dhawaalaha baraha YouTuberada iyo baraha bulshada qabsaday oo la xiriira gabar caan ka ah TikTok inay isku fiican xiriin uu ka dhaxeeyo haddaba waxaan maanta muuqaalkiinan ku eegi doonaa daawadayaal sababta Dayaxdal Nuurshe ku qasabtay meel fagaara ah hadalkan uu ka sheego maxaa ka jira in asaga iyo xaaskiisa maalmihii dambe muran uu ka dhaxeeyay oo ku saabsan arrimaha ama maseera maxaa ku qasbay Dayax in meel fagaara uu ka sheego hadalkan qanciyana xaaskiisa dhammaan warbixinadan iyo sheekooyinkan ayaan isdul istaagi doonaa caawa daawadayaal inta aanan gudi galin muuqaalkan iyo waliba falanqeyntiisaba daawad waxaan ku xasuusinayaa halkan waa hoyga fanka iyo suugaanta inaad subscribe tiraado channelkeena gambaleelkana aad taabato si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo waliba warbixinada xiisaha badan ee waqti walba halkan aan ku baahino kuma asarin haddii aad tahay daawado nagu soo biiray oo hore kamid ah dadka nagu tixnaa oo nala socday iyadoo lagu guda jiro maalmaha munaasabada Ciid Fitriga ayuu fanaanka weyn Dayaxdal Nuurshe wareysi lala yeesho oo ka hadlay xaaladda qoyskiisa iyo noloshiisa gaarka iyo tani markuu sameysay qoyskiisa noloshiisa isbedelka ku timid ayuu fanaanku siyaabo gaar ah kaga hadlay asagoo sheegay inay jiraan dad badan oo cadow ku ah qoyskiisa oo ka shaqeynaya burburinta iyo in iska hor keenan asagii xaaskiisa Dayaxdal Nuurshe wax laga weydiiyay duruufaha qasabtay in hal xaas uu ku ekaado ayuu sheegay in noloshiisa ay wax badan ay ka bedeshay asagoo sidoo kale ay sheegay inay jiraan dad badan oo wax ka abuuray propaganda laakiin uu sheegay in marna aan qoyskiisa dhibaato ama walwal kaga baqayn oo ku saabsan arintan fanaanka ayaa ku dheeraaday ka hadlida marxaladii adkaa ee soo maray noloshiisa iyo hadda nolosha uu ku jiro waxa uu sheegay in 3 sano ka hor nolosha uu ku jiray yahay mid aad u adag ama 4 sano ka horba laakiin inaad guursato waxa uu sheegay waa faa'iidada ugu weyn ee noloshaada waxa uu sidoo kale uu sheegay in haddii noloshaada aad ku aaminto xaaskaaga ma ayada ku maamusho uu sheegay in taay ka dhigan tahay in wax badan oo noloshaada ah aad horumar sameynayso wuxuuna maahmaah ama tusaale u soo qaatay maahmaahda ahayd qof walba oo guuleysta xaaskiisa ayaa u sababa Dayax oo arintaasi difaacasho ka dhigaya sheegay in sababta ku qasabtay in hal xaas uu ka ekaado Farxiya oo kaliya ay tahay sababtaasi asagoo sheegay inuu aad ugu qanacsan yahay xaaskiisa ayna jiraan propaganda warbixin laga abuuray laakiin uu sheegay in marna ayagoo aysan shaki iyo matoona soo gelin wax walba lagu baahiyaa ama lagu daabacay baraha bulshada Dayaxdal Nuurshe oo si hadlayay wareysigan oo lala yeeshay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay heerka uu fanku ka joogo asagoo sheegay in wali uu doonayo in fankiisa oo si casriyay wax badan uu ka bedelo Dayax ayaa meesha ka saaray wax walba oo ku saabsan arrimaha qoyskiisa ee looga hadlayo baraha bulshada ama YouTuberada qaar ee baahiyeen waxa uu sheegay in wax walba arintaasi ku saabsan ay tahay mid been abuur oo lagana been abuuray asaga iyo waliba xaaskiisa Farxiyo wuxuuna sheegay inay dad isku qanacsan oo nolol fiican ku jiraan inkasta uu sheegay in dadka waxaasi baahinaya uu sheegay in mararka qaarkood ay dhibaato u keeni karaan qoyskiisa lagana yaabin xaaskiisa ay shakiso ama tuhno ay sameyso laakiin waxa uu sheegay in 99% xaaskiisa kalsooni badan oo ku qaba ay ku qabto sababtaasna ay qayb ka tahay sababaha uu hal xaas uu kaliya ku ekaaday mar wax laga weydiiyay mustaqbalkiisa inay jiri doonto in isbedel ku sameyn doono nolosha hadda uu ku jiro ayuu meesha ka saaray asagoo sheegay in marna aysan dhici doonin isbedel walba oo noloshiisa
hadalka dayax iyo weliba sheekadanba ayaa kusoo aadeysa iyadoo dhowrkii cishe ugu dambeeyna baraha bulshada gaar ahaan youtuberada qaar ay baahiyeen macluumaadyo ku saabsan nolosha dayax isbedel uu ku timid iyo sidoo kale in dayax xiriir qaas uu la sameynayo gabar caan ka ah baraha TikTok ama aalada TikTok sida weyn loo isticmaalo waxaana la sheegay in gabadhaas ay xiriir uu ka dhaxeeyo dayax taasna ay shaki badan gelisay xaaskiisa dadka badi ee wax ka yaqaan nolosha dayax dalnoosh ayaa aaminsan in dayax uu ku jiro hadda nolol aad u fiican wax badan noloshiisa ay ka bedeshay xaaskiisa Farxiyo oo la sheegay inay tahay qof qudheeda shaqaysata oo leh goobaha hablaha lagu qurxiyo taas oo macaamiil ama dad badan ay ku haysto Muqdisho dakhliga ugu badan sida dhaqaalaha qoyskooda halkaas uu ka soo galo marka laga tago dhaqaalaha lacagaha yar ee fanaanku uu ka helo bandhig fanaadyada iyo aroosyada magaalada Muqdisho ka dhacaya oo fanaanku uu ka qayb galo fanaanka oo ka hadlayay barnaamij ka baxayay ee warbaahinta TV-yada dalka xilli loo dabaaldegay maalinta koobaad ee munaasabada Ciid al-Fidriga ayuu arintaasi ka hadlay asagoo sidoo kale ku dheeraaday sharax ka hadlida fankiisa iyo waliba isbedelka uu doonayo in fanku uu ku sameeyo aan daawano muuqaalkan yar aan soo qaadano si daawadayaasheenu ay u arkaan fanaanka iyo waliba sheekadan uu sharaxayo waan jeclahay in aan maslaxa ku soo dhaweeyo waa fanaanka daada yar codka macaan dayax dal nuurshe ayaan jeclaan lahaa inaad iga soo dhaweysaan ciid mubaarak dayax ciid mubaarak aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijkan nagala soo qayb gasho waan kugu soo dhaweynayaa dayax maadaama ay tahay habeen farxadeed ciid ay tahay ummadda malaayiinta muslimiintana daawan doontana ay sugayaan in aad maaragtay u soo bandhigto bal marka ugu horeyso dayax waxa markii la arko la soo xasuustaaba inuu yahay si maaragtay taariikhda qof oo u jajaban jacaylka horta jacaylka adiga ahaan maxaad maaragtay ka fahamsantay dadka ilan jacaylka hadda afaaro badan iyo ereyo badan iyo howlo badan u galay bal dayaxow aragtidaada jacaylka hadda caawa noo qaxdo bal inta ugu horeysa intaan barnaamijka u gudagalno wallaahi horta waan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta adduunka ka joogaan ciid wanaagsan kulli caam wa antum bikhayr arinta ku saabsan jacaylka horta jacaylka waxaa waaye qofka ibni aadanka waa ku samaysan yahayba maxaa yeelay qofkani waxaa laga yaabaa adiga inaa hooyada jeceshahay inaa walaasha jeceshahay inaa xaaskaaga jeceshahay inaa walaalkaa jeceshahay laakiin waxaa laga yaabaa jaceyladii dadka sida ay u jeclaayeen inay xoogahaas qalad meelahaas oo kale inuu ka jira laga yaaba for example aniga jecel ay igu dhala hooyaday waa jecleed aabahay wuu jeclaa hooyaday aabahay markay isguursanayeen markii aniga caloosha galayay oo dhalanayeen waa la jeclaa way isjeclaayeen ayaguna haddana waxaa waaye ani hooyaday aan jeclaa aabahay jeclo walaalahay xaaskaygana waan jeclaa caruurteeda aan jeclahay laakiin dhibaatada ugu weyn yani jirto jacaylka horta guud ahaan waa halkaas laakiin gaar ahaan markii la dhaho dadka family ahaan ay ummadda isugu tilmaameen is jecel yihiin oo ragga iyo gabadhiisa xaaskiisa marka Soomaalideeni oo caadi ahaan dhaqan ahaan iyo dabiicad ahaanba waxaa ku yaraatay xushmadaha sida gaarka loo siiyo xaaskaaga iyo xushmadaha sida khaaska loo siiyo caruurtaada iyo inaad yeelato maxaa la dhahaa hal xaas hal nolol si aan problemka ugu imaanin ani waxaa laga yaabaa 4 sano ka hor xaaskay inta isguursanin nolosheedan sidaa ma ahayn sidaan uma ekaan sidaan uma qurux badnayn laakiin marka isguursanay haddii maanta xaas kale aan la guursan lahaa haddaan nolol kale ku mashquuli lahaa waxaa laga yaabaa isla sidii maalintii aan isguursanay ilaa maanta inaan hal meel taagnaan lahaa laakiin markay hal qof ku xagayso teeda kale markuu qofku hogaankaaga markuu hayso oo ay maxaa la ii sheeg haween hayso oo kula talinayso ay adduunka ilaahay waa horumarka rag kasta oo horumar gaar waxa ka dambeeya haweenada ay dadku yiraahdaan anigana waa arkay marka qofkaaga iska dhiibto oo isku dhiibto tiraahdo bal noo tali familkana u tali nolosha iyo horumarkana ka tali meel xun kuma geynayso mar walba meesha wanaagsan marka waxaad leedahay ha loo dhagabulaado dumarka ayaga ma aragtay meesha fiican u yaqaano because of adiga maanta xaaskaaga marka talada adiga u dhiibto oo tiraahdo bal taladii familka iyo taladeedaba adiga bal ka tali marka tiraahdo xaasasku waa aqli badan yahay especially habeenku waxa waaye ragga fikirka ku jiro waxa u maleysaa mostly inuu inta ugu badan inuu iyada ku jiro oo yaani ay ka fikir dheer yihiin meel dheer wax ka arkaan bari waxa dhacay waxay ku leeyihiin hadda ka hadlayaan waxay ku leeyihiin bari saas inta sameeyay sidaas dhici doonto marka ku dhaga adeegtidna waa kugu dhacaysaa ma fahmi marka dhaga adeeg ma fiicno waa in ma aragtay loo jilaa aad baad u maasan tahay hagaag
marka laga tago sheekada fanaankan dad badan ayaa aaminsan in fanaanka dayaxdal nuurshe fankiisa hoos u dhacay tan iyo markii uu guursaday xaaskiisa Farxiyo. dadka qaar ayaa arrintaasi ku micnaynaya kadib markii fanaanka uu badi ahmiyadda ugu badan siiyo qoyskiisa fankan uu ka mashquulay. sidoo kale fanaanka ayaa lagu eedeeyay inuu ka gaabiyo soo saarista heesihii badnaa ee loogu bartay fanaanka. waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in fanaanku uusan soo saarin wax heesaha marka loo eego 2 sano ugu dambeeyay heesaha uu soo saarayay fanaankan in hoos u dhaceen. hoos u dhaca heesahaas ayaana loo aaneynaya asaga oo badi ihtimaamka ama waxa ugu badan noloshiisa markaan uu isku geeyay xaaskiisa Farxiyo. asaga Farxiyana waxaa la sheegay in ay Farxiyo oo noloshiisa saameyn ku yeelatay ay sabab u noqotay in ay wax badan ka bedesho fankiisa iyo waliba sidoo kalena heesii uu soo qaaday jiray iyo waqtiga ugu badnaa uu ku milmaa fanaaniinta. sidoo kale waxaan xogta ku helnay in dayaxdal nuurshe uu markaan saaxiib dhow uusan lahayn badi fanaaniinta ku nool caasimada kuwaas ay xurguf iyo dagaalo ay ka dhexeeyaan. sababtaasna waxaa lagu micneeyay inay tahay fanaanka oo badi hadda iskala weyn fanaaniinta ugu waaweyn ee dalka, taas oo dadka qaarkood ku micneynayaan waxyaabaha dayax kali ku yeelay fankiisa Muqdisho kuna soo koobana inuusan qayb ka noqon barnaamijyada fanaaniinta iyo waliba kooxaha fanka ka jira ee dalka sida kooxda hobalada qaranka ee Waaberi, kooxaha kale ee dalka ka jira Horseed, Heegen iyo kooxaha kale ee dowladda hoostaga oo ay dowladuna maalgeliso. hadda wadiyaallah maantana muuqaalkeenin halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa oo fanaanka dayaxdal nuurshe aan ku eegnay oo kaga hadlay waxyaabo badan oo qaas u ah noloshiisa, waxyaabaha kali iyo sababaha ay noloshiisa isbedel u sameyn waaye. waxa uu ka yiri arintii maalmihii dambe baraha bulshada qabsatay ee la xiriira noloshiisa iyo asaga iyo xaaskiisa iyo waliba waxyaabo kale oo qaar ah uu ka hadlay sidaad muuqaalkeena videogan aad ku daawateen. waxaan naga xasuusinayaa daawadayaal muuqaalkeena kan xiga kale inaan ku soo qaadan doono wax walba oo ku saabsan sheekada dayax iyo waliba wixii kale oo noloshiisa ku soo kordha oo aan baahin doono iyo sidoo kalena dayax qodiiso aan telefoonkan ku baahday goobeena si aan wax kaga wadano sheekadan. muuqaalkeena daawadayaal maantana halka ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkan mid lamid ah intaan ku kulmi doono waa bahdi hooyo fankooda leh nabadgelyo.